Macallin iskuul baa ardaydiisa ka mid ah oo dembi galay garaacay. Markii uu gambaleelku ama jaras ku yeeray, buu ardaygii si degdeg ah intuu fasalka uga baxay, orod isa sii daayay. Hooyadiis laabteedana isu tuuray, isagoo ooyaya oo isrogrogaya sidii ruux la qaniinay. Hooyadii wuxuu u sheegay in macallinkii iskuulka uu si xun uga faramacaystay, welibana sabab la'aan. Isla daqiiqadiiba inta ay jilbaab isu boobtay bay baxday iyadoo inankii gacanta haysa oo cara ma ahane besteed ah, uburtana labada dacal ka daynaysa. Waxay caan ku ahayd inay ahayd islaanta xaafadda ugu sharta iyo qaylada badan. Isla markii ay iskuulkii gaartay, qaylo ayay bilowday iyo dhaar ah inay macallinka qurunka ah iskuulka dhanba madaxiisa ku kor dumin doonto. Macallinkii markii uu islaanta qaylinaysa arkay, ardaygii ayuu aqoonsaday, danta ay u socotayna waa uu gartay. Marka inta uu ardaygii eegay buu ku yidhi, maxaad walaasha u soo kaxaysay? Ardaygii wuxuu ugu jawaabay, macallin waa hooyaday ee walaashay ma aha. Macallinkii intuu islaantii eegay wuxuu yidhi, subxaanallah, walaashiis baa lagu moodaaye, hooyadii maba lagu moodo. Islaantii intay kala badbadatay oo dhoola caddaysay, daamankiina ay qajilaad la casaadeen, bay sidii barafkii u dhalaashay. Xanaaqii hayayna adiga ayaaba sheegaya. Markaas kadib macallinkii ayaa weydiiyey, Marwo, waad qaylinaysay yaa kaa xanaajiyey? Waxay tidhi, wallaahi macallin, wax kale ma ahee waxaan u imid inaad ii sheegtid sababtaad u garaacday canugan, si garaacis wixii u harsan aan ugu sii dhammaystiro. Inankeedii inta ay ku jeesatay oo timaha qabatay, bay dhulka ku masaxday iyadoo ku celcelinaysa, haddaad markaan iga fakatid, heblaayaba la ima yiraahdo. Kadib macallinkii ayay mar kale dhoola caddayn dhag uga siisay. Inankii maskiinka ahaana wuxuu la yaabanaa waxa hooyadii ay sidan dhan isugu beddeshay oo 360 digrii mar kaliya u wareegtay. Qoraha sheekadan Ustaad Sabriye Muuse wuxuu leeyahay, ogow hal eray baa laga yaabaa inuu dhacdo dhan beddelo. Haddaba daawada inala wadaag waxa kaa soo jiitay sheekadan oo aragtidaada qaybta commentiska inoogu reeb. Sidoo kale la wadaag asxaabta kale oo muuqaalka inoo sheer gareeya.